shirweynaha urur siyaasadeedka mustaqbal oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland ayaa la soo gabagabeeyay waxaana lagu doortay gudoonka urur siyaasadeedka mustaqbal. Golaha dhexe ee ururka ayaa maalintii labaad ee shirweynaha ku doortay gudoomiyaha ururka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee ururka, gudoomiyaha golaha dhexe iyo ku-xigeenkiisa, xogayaha guud ee ururka iyo gudoomiyaha aasaasiyaasha urur siyaasadeedka mustaqbal. Engineer Ahmed Saciid oo ka mid ah guddiga doorashada ee gudoonka urur siyaasadeedka mustaqbal ayaa ku dhawaaqay natiijada iyo sida loo kala guuleystay. natiijadu waxay u dhacday sida soo socota gudoomiyaha waxaa ku tartamayay caalamka gudoomiyaha golaha dhexe waxaa u tartamay Ahmed Cali Cusmaan waxaa u codeysay boqolkiiba golaha dhexe ee ururka mustaqbal waxaa هذه بقول للجهات وواحد ما الذين وقع قرية وحاولي إبن وحاول صي إبن سافرت هذا الرجل واحد يقول هذا الحا نهدي على العثمان يقول كونيا واحد وحاول صي محمد إسماعيل عبد الرزاق محمد وسلم وحاول محمد إسماعيل سيدنا وحاول هذه وهذه هو يشهد وحاول يريد إبن وهذه الحرب وحاول عن سهرة وحاول سهرة هاي بدويها ورقة مصرفة بدوية وحاول تطمئن عبد الكافي حسن محمد وحاول على السيد وهو يصدق الإخوان سافرت وعلم الكلام كلها أروح مصطفى يوم الاثنين وقتها عطونا تنفذ متوسع سوريا شيخ عبد الوهاب محمد شاهد هذا حول السيد وهو يشهد القرآن ما حرق وحتى عن السيد وحتى عن السيد سافرت سوريا ويقول الكوريين حولنا كل استقبل وعلمنا عبد الفتاح محمد سهيل وعلمنا وقال الرئيسي وولي السلام ميا شمع وعلى السيد ربع زيادة وحولنا كل أولنا مسلم بدونها أساسيات أولنا مسلم وحاول عبد اللطيف يوسف بدر وصلنا هنا gudoomiyaha aasaasiyaasha ururka mustaqbal. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka mustaqbal xildhibaan Maxamed Ismaaciil Sibad oo hadal xiritaana ka jeediyay shirweynaha ururka ayaa u mahadceliyay guud ahaan shirweynaha iyo qabanqaabiyaashiisa. intayna shirka xiran mar kale ayaan mahadcelinayaa dhammaan dadka ka soo qaybgalay shirweynaha kan oo ka dhigay mid sidii loogu talagalay u dhammaada. waxaan kaloo mahadcelinayaa oo ka mid ah dadkaas si gaar ah dhalinyarada warbaahinta oo shaqo aad iyo aad u fiican qabtay. guddiga doorashooyinka xisbiga waa guddiga aad iyo aad u mahadsanyihiin shaqo fiican. waxaan ka hadlaynaa amaba ujeeddada ururadan waa siyaasad aad iyo aad baad u mahadsanyihiin. insha allahu hawl baa idin sugaysa berina hawlaynu dhammaystiraynaa. waxaan ilaah ka baryaynaa inaan ku guulaysano aad iyo aad baa u mahadsanyihiin. shirkuna waa inoo xiranaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shamaakad Waqaadi Jaamac warbaahinta dawladda Puntland Garowe.